halkani waa shabakada wararka kulmiye oo idin soo gudbinaysa war degdeg ah. halkan saaxiibayaal waa keenan Muqdisho sida aad maqasheen waxaan idin soo gudbinaynaa wararka degdega ah ee ku aadan qaraxyo daqiiqado u dhaxeeyay waa laba qarax oo Muqdisho ka dhacay gaar ahaan degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. qaraxyada oo wararka ku aadan ilaa imika yihiin qoyska soo taraya ayaa waxa ama ay ka dhaceen xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya oo ku taala degmada Shangaani isla markaana dhabarka ku haysa ama aad ugu dhow xarunta qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. qaraxa hore ayaa ahaa gaari waxaana la sheegay in ididka hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha uu ka dhacay isla markaana rag hubeysan inta kadib ay gudaha u galeen xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. gaari labaad ee qarxay ayaa la sheegay sida dad goobjoogayaal ah ay ku waramayaan inuu ahaa gaariga ay ka degeen ragga xilligan la tilmaamayo inay ka dhex dagaalamayaan xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. waxaana sidoo kale jirta in xilligan ay halka gaareen askar badan oo ka tirsan ciidamada dawladda si ay weerarka uga qayb qaataan ama soo afjaraan. mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah ee qaraxa markuu dhacay goobta ka ag dhawaa ayaan goordhow ka waraystay. waxagee halka lagu jiro ee qarax uu ka dhacay waan gartay qaraxa hore iyo qaraxa labaad goobta ay ka dhaceen bal inoo sheeg. qaraxa labaad haduu dhacay 5 daqiiqo ka hor buu dhacay qaraxa labaad. xaguu ka dhacay isaguna? banaanka gaari banaanka ee dhigana kaga tageen wey. waan gartay ma rag dagaalamaya gudaha ku jira wasaaradda? gudaha ku jiraan. adiga marka xagee joogtay marka qaraxa uu dhacay? banaanka taagna wasaaradda banaankeeda taagna. waan gartay xilligan xaaladdu waa sidee maxaa soconaya? wallahi askartina wada dagaalamaysa kolka iyagana gudaha ku jiraan. waxaad ii sheegtaa askarta dagaalamaysa ee gudaha ku jiray aad sheegtay ka sukow qaraxa hore muxuu burburiyay muxuu geystay maxaad aragtay adoo dhimashay dhaawac? walaalow ii sheegay laba qof oo shacab oo agteena taagneed oo ku dhaawacantay ii sheeg wax gudaha ku dhacay ma garanaayo walaal taas warkama gudaha lama geli karo. badi qaraxa qasaarihiisa waxa ma gudaha wasaaradda uu jira mise banaanka hore ayaa qasaaro badan oo ka dhashay? banaanka hore uu qasaaraha labada qof oo dhaawac ka dhashay. dhismayaasha kale ku dhagan wasaaradda ka waran? waa burbureen. dadkii ku sugnaana? dad ku sugnaa walaa war laga maayo walaalow gacli. waxa uu ahaa qof goobjooge ka ag dhawaa halka qaraxyada isxigay ay ka dhaceen ee xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya. waxaa xusid mudan xarunta xilligan la tilmaamayo ama wararka soo sheegayaan in dabley hubeysan ay gudaha u galeen ay aad ugu dhowdahay xarunta ama qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo sidoo kale hotel Durbin oo sidoo kale goor hore ama waqti hore qarax uu ka dhacay. wararka ku aadan qaraxyada iyo